وحلالية وحي إعلامك soo saareen inta ugu badan le boqolkiiba 90 TV-yadu waxay soo saaraan bay yiraahdeen waa maada tarfiihiya dadka waqtiga laga lumiyaa waa sababta keentay in dunidu oo dhamay u waalato harag yaro la buufiyo la eriyo sameeydan maqal wax la yiraahdo koobka dunidu muxuu yeelay isugu yimid waa harag baa la neefeeyay niman bay eriyanaya harag la neefeeyay dabeetana dunidu oo dhan ay daawada leeyay alcaalam ajma' ayaa TV-yada hor fadhiya iyo kuraasi loo taagayay oo qofna dhaqaaqayn oo yeedhaynin waxa la wadaana harag yaro neefaysan baa la eriyaa marna laba birood la dhaxgelinaya marna laba birood la dhaxgelinaya alcaalam kullu bal qiime waa harag uu neef lagu shubay wax kale oo ku jira meed garanaysaa wala eriya laba birood buu dhaxgelaya dabeetana waa la soo celinaya laba birood oo kale u dhaxgelaya adduunka kullaha waxa laga dhaadhiciyay inay u taagnaato habeen iyo maalin oo ay daawato haragga la neefeeyay idan waxay yiraahdaan waa mu'assasa tarfiihiya oo ah in bulshada waqtigeeda la maamuli karo nimanka siyaasiyiinta ummadaha ma xukumi karaan haddii aanay bulshada waqtigeeda maamuli karin bad muusig loo daaro bad kubad loo daaro bad jacayl loo daaro bad film loo daaro bad musalsal loo daaro bad waxa loo daaro dadku inuu mashquul kala ahaada cid waliba waa inay wax ku sii jeedaan dadkan had iyo goor kala bixi kari la ee dunida saddexaad waa la mashquulin kari waayay tooda badan waxay yiraahdaan waa mu'assasa ikhbaariya waa mu'assasa wareed bay yiraahdaan warku bay yiraahdeen waa inta la doono مثلا wariya meel jooga war baa loo dhiibayaa war buu dirayaa laakiin warkan wariyuhu diray censorship buu soo marayaa faafreeb waxa la soo deynaya wariyuhu wax laga yaabaa inuu saacad wara diray laakiin hal minute oo dan laga lahaa baa la soo deynaya wa hal minute oo ah ala tariiqati fawayl lil musallin naga wada fawayl lil musallin quraanka ay kamid soo kama mid ah soo quraanka kuma jirto wayl baa u sugnaaday kuwa tukada laakiin miyay inta un tahay maya intii kala laga jaray khabarka noocaas loo wariyaa marka la doono fawayl lil musallin baad wari kartaa oo oran kartaa kitaab rabbil alamin ku jirta hadii laakiin aad doonayso inaad run sheegto waxaad warinaysaa iyadoo ah maxay fawayl lil musallin alladheena hum an salatihim sahun iyada abad warinaysaa akhbaartu waa intiqaay walidalik ba nimankan yuhuudda ay mesela protocolaadkoodii markay isu tageen ay protocolaad xukuumaha sahyuun baa halka la yiraahdo markay soo saarayeen waxa kamid ah waxyaabaha ay qoreen yajib bay yiraahdeen alla yasila taraf min khabar ila almujtama' min ghayr an yahdha bimuwafaqatina ولذلك لا بد لنا من السيطرة على وكالات الأنباء التي تتركز فيها الأخبار من كل أنحاء العالم وحينئذ سنضمن ألا ينشر من الأخبار إلا ما نختار نحن ونوافق عليه وقوان لنا الرجاري ميل كشري دوني دبايد آدم وروينا نقادن مدينة غينا مرم ويان وين وكالات كواوين أنباء السيطرين كرنا بيلي سيأي ودع كرتو inaynu hubino warka dunida ka baxaya dhamaantii waxaynu inagu yeelay inuu noqdo idan waa mu'assasa ikhbaariya oo ay soo deynayaan rag ku takhasusay khubara dacaaya yani rag ku takhasusay dadka xuquuqooda sida loo lumiyo maanta waxa laga yaabaa TV-yada wararka laga daawadayo waxa si wuxuu ka dhaadhiciyay suura ayaad haysataa mesela suura baad haysataa meel kasto maray ku taalayna qurux badantay Soomaa meel kasto Afrika ku taalana inay meel madow oo tuqsi badan tahay waayo kamarada wariyahan raba inuu ku waramo Afrika markay joogto ku daafada mooyana wax kale ma arki karto Maraykanka markay joogto skyscraper isku baa u muuqda meel kale ma aragto walidalik ba documentary film oo qoray niman Jarmal ay qoreen ayuu wuxuu soo sawiray New York iyo gaarkeeda waxa degan dad la yiraahdo 3 milyan gaadho ku dhadhow oo la yiraahdo waa homeless people dadka bilaahoyga ah darbi seexadka waa dibjir 3 milyan oo dibjir magaalada ka waran oo hoos seexda bridge-da ugu waaweyn magaalada oo guryahooda ugu fiican ay yihiin kuhuuf godad ay qoteen godad yar yar gala
oo qalab wuxuu haysto dhami kariyoonu saaran yahay kartoonadu ku seexdo wuxuu wax ku korsado iyo wixii soo dhamay in kartoon in kariyoona uu sidoo yahay oo haddana New York degan meed maqashay New York uu degan yahay laakiin warbaahinta caalamku ma rabto inay suuradda ku tusiso waxay rabtaa inay suurad ku tusiso ma huwa gharbi wa amriiki wa nadiif wa jayyid wa qurux badan yahay wa lacag buu haystaa wa heer sare mataqaana ninka jooga مثلا يوروب صورة laga siiyo qofka carbeed يعني qof rajul shaaric caadi hadaad carabka weydiiso suuru ka haystaa ah qof naaga jecel oo hunguri badan oo aan dumarka ka maarmin oo shaqo kalena qaban suurada uu haystay carabkaba laga haysto markuu yurub joogo waa suurada hadhihi suwar rag baa sameeyay dadka ka dhaadhiciyay idan i'laamku iyo warbaahintu waa waxa aad u khatar ah waa amaliyad khatarteeda leh oo maanta wasaa'ishay haysataan ay xad dhaaftay waa amaliya asliyan aynu leenahay waxay ka koobnayd saddex shay mursalkan warka sheegaya warka diraya oo looga baahnaa cadaalad amaano iyo run sheeg إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كوحي نقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما من جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الفاسق خبره جل ما أقبله إلهي وحليه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وردا لما صافيه إذا ورك مرسل كورفا فينا يوحو باهين وغضه صاحب عدالة وأمانة وصدق الرسالة اللفافين يانا الرسالة اللدير يانا إن حقيقة نغطه قفك مستقبل كينا كقابل يورك اللسين يانا وقفك إرادينيس صدح داسي سيدا يوفل قلان أما عملية اللود دجيا يكو حرنت ورباهين كدماكي هلا نمرك ورباهين وهب آدو خطره ورقها يستعيسي في عنه استعمالات وهب عد والبحبة اللي قد لي سيجار الله بطلق وحتى آنس كمدها مثلا ما أنت بحل استعماله وحلا يدهدو ورباهينه يردن بس كفوصة أول وحا وقر رادين بدنا ورباهين تراديوغا وهي ورباهينتا waxa qorani waxay raadaysaa inta wax akhrida laakiin imka inagu wadanadaynu joogno kale intaan wax akhrinin baa ka badan inta wax akhrida warbaahinta ugu raadka badan la markaa waa la dhageysto ama tan maqalka iyo muuqaal kale radio ama TV waxa laali waxa kitaab haysataan oo dhan waxa ka wax sheeg badan waxa la dhageysto iyo waxan la arkay la daawado nimanka warbaahinahan samaystay ama ku tala galay waxay ku tala galeen umamka inay gumaystaan waayo waxaan idin siin doonaa warar iska kooban oo مثلا دكتور ناصر العمر شيخ الله يرضى uu soo ururiyay مثلا wuxuu leeyahay TV-ga marka la qiyaasay buu leeyahay yani wuxuu soo qaadanayaa إحصائيات أي رقميين إحصائيات كاسي واحد أرجع حساب كذا دركته وضنا ذان واحد يبقى بدنا مثل السعودي وكلا واحد ما يسنا وضن مغلقة وحبك لي وكيل وزارة الإعلام في السعودية بقول لي أفر بقول مجلة الدورية هي صحيفة هي كلا السعودي وكلا نوعه سعودي قام مسكين كاس هذا يدوري ده وحبك ما يوجد مركي أفر بقول كشباب العالم كلا نقياس كلا نوعه مثلا TV-ga markaynu soo qaadano wuxuu si dhinac dhigaya ardayga jaamacadda dhigta مثلا إحصائيات uu ka soo qaaday jaamacadka Sacuudiga ardayga dhigta sanadkii saacadaha ugu badan ee ardaygu sanadkii qaataa buu leeyahay 600 saacadood طالب الجامعي في السنة وكريدت هاورز ka wixii loo dhan jiray ardayda jaamacadku ay qaadan jireen ardayga jaamiciga Sacuudiga ee ugu tirada badan la sanadkii jaamacadka ugu sareeya 600 saacadood baa la qaataa buu leeyahay
jaamacaadka qaarkoodna 500 saacadood jaamacaadka qaarkoodna 400 saacadood ardada part time ka dhigataana way kaba sii yartay laakiin wuxuu leeyahay fardiga sacuudiga caadiga buu yidhi inta uu TV-ga hor fadhiyo markii ihsaa'iye lagu sameeyay sanadkii 1000 saacadood buu hor fadhiyaa halkuu